waxay ka dhuunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuuladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabad galaan dalkan Maraykanka. Dhalinyarada ka tagta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Maraykanka sanadihii 2007, 2008 iyo 2009. In ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii cararayeen. Galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhalinyarada ka tagtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya. Labadan xubnood waxay isa soo dhiibeen bishii Sebtembar 2018 waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dawladda Soomaaliya. Hase yeeshee dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka war helay kasoo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. Waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah. hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. mid ka mid ah labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar oo mas'uuliyiinta Maraykanku sheegeen inuu ku biiro ururka Al-Shabaab bishii Disembar 2007. Axmed ma aha muwaadin Maraykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. bishii November 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota kuwaas oo xeer beegti Maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah. waxaa lagu eedeeyay shirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada. waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la tagfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo. sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay. waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qalafsan, waxayna maleegayeen ayuu yidhi inay xiraan. waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno, oo sida maskaxdooda loo bedelay oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir. bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka Al-Shabaab. waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qaraxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kalifay inay soo goostaan. kama tegi kartid kumana dhex noolaan kartid ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan saddexaadna uu yahay Maxamed Cabdullaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii Disembar 2015. galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden. nimankan waxay ka soo horjeedeen Al-Shabaab muddo dheer ayay ka soo horjeedeen. sababaha ugu soo horjeesteen waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay. waxaan rabay inaad noo xaqiijiso hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiil ka yimid Minnesota kana soo goostay Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa? waan ku xaqiijin karaa intaas. aqoonna waad leedahay? aqoon fiican oo u leeyahay raggaas ka soo goostay aqoon fiican baan u leeyahay. rag waxa waaye ka soo horjeeday hogaankii Al-Shabaab ka soo horjeeday sida wax u wadeen. markii aan ka soo tagay 2013 aan ka soo cararay raggaasi maxay aan ka soo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas kor xataa waa la hadlay dood xataa wana soo dhaxmartay. waxayna ugu weynaa meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale in la qabto oo ka bacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. sidaas awgeed waxay dhaheen aniga meesheena ayay ku xukumanaa inaan iska joogo.
Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan. waxaa xubnaha ku jira xabsiyada Al-Shabaab ay ku magacaabeen Khalid Maxamuud Abshir oo loo yaqaano Cabdalla Khanaas, Cabdullaahi Axmed Faarax oo loo yaqaano Cadaaki ama Xayaakallah, Farxaan Ciise oo loo yaqaano Idris Dulkifle, Mustafa Cali Salaad oo loo yaqaano Zubayr, Cabdisalaam Xuseen Cali oo ku magac dheer Uxud, iyo Cabdifataax Yare iyo Nuur Yare. Cumar Maxamed Abwayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xiriiray dhulka ay Al-Shabaab ku sugan yihiin iyaga oo doonaya inay talo iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan. runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaano ilaa 2006 2007 Soomaaliya dhex joogay ilaa 2008 dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd wadamada Europe, America iyo Afrikadaba oo markasta iweydiiya sidii aan aniga ugu suurta gashay inaan soo baxo oo ka dacayna dalkii aan ka imaado hore ugu soo laabto oo wax dhibaato ugu haynin oo Sweden sidii u ceyshi jiray ee ugu noolaado oo ayna dawladda Sweden dhibaateen dawladda Soomaaliya dhibaateen dad badan baa waxa dhaashay bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga ma laga yaabaa in anagana sidaas oo kala suurto gal noo ahaato aniguna waxa jawaab uma hayn laana kuma arkin dawladda xageeda wax program ay u dejisay ragaasi oo ajaanibta ah ee ka imaanaya Europe iyo Afrikada iyo Carabaha barnaamij ay u dejiyeen oo ragaasi dib ugu celin lahayn ayagoo nabad qaba barnaamijkaas marka arko ayaan dhihi lahayd barnaamij noocaas ayaa jiray sida sameeyay meeshaas kala xiriira laakiin anigu mar haddaan barnaamijkaas aan waaye waxa jawaab ma kaasin ilaa hadda. su-aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyadan la dhacsanaa markii hore sidaas sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meelo kala dibadda ka imanaya hadda iyagaa soo ordaya maxay tahay sababtu? laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ee noqotay ayaa kaati kala dheeri noqotay ayaga waxay u maleeyeen in shareecada islaamka dib loo soo celinayo oo sidii dawladii maxay hore oo Umar bin Khadaab raallihi anhu amal la soo celin doonayo maleynayeen waxay u maaleen rag oo dhiiga muslimka fududeysanaya oo ku dhahaya laba turki baa rabnaa inaan dilno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo boqolaal qof oo muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahayo waxa beesanayna laba ruux ayaan beesanayna labada ruuxba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisayaan waxay arkeen markay in wixii ay waxaan ay jihaad ahayn waxaan wax kale ay tahay shaqo kala jirto marka dadka badankiisa aqli bay leeyihiin ragga muddada dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan ilaa iyo mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto. xubnahan ka soo goosta ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii June 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho. Burhaan Ibraahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir. waxaa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood kadib markii uu joogay Soomaaliya. xilligaasi waxaa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen. xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibraahim Xasan uu jiranaa isla markaana uu muddo ku taanayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii June 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukade. waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibraahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyay. waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin. waxay sidoo kale intaasi ku dareen inaysan ka warqabin wax diyo ah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibraahim Xasan. haddaba waxaan arrintan kala xiriiray ehelka Burhaan Ibraahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdirasaaq Biixi waxa uu arti u yahay Burhaan Ibraahim Xasan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan. walaalow annaga wiilkayga waxaa lagu maqaala ah in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa
nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkaan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaas la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyaad ah ay dileen markii ugu horreysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyardii ka tagtay Minneapolis oo ka soo goostay ururka al-shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada al-shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukada in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aad sheegtay niyaddana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayay inuu baxo oo uu maaragtay isku soo dhaweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub wallahi horta waa markaad waari tahay sida walaashay ay xanuunkan u taabtay dadkan soo gaaray wiilkeedii ugu da'yaraa reerka oo ay jeclayd waad ka garan kartaa macluumaadka aan helayno waa fara badan yahay shakhsiyaad oo kala duwan baa la sheegayaa laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta marka waxaa kaloo ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta la isku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad la soo taago wiilkii xabadda riday aan maxkamad la soo taagin aabihii oo kaba ku tukada ahna uu soo dhaxgalay oo uu yiri diyaan ka bixinaya wax diya may ka bixiyeen waxaa jira wada hadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan Maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalihiisa ay la xiriireen wada hadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diya bixiyaan reerkuna waa diideen waxay yiraahdeen xarakadu waxay qabtaa sharcigaas oo qisaas in lagu dilo qof dilay sida ay sharciga ku maamusho dalka iyo meelaha ka haysato marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin qisaastii ma dhicin sida lagu maqaala ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu uu ka dambeeyay dilka Sheekh Yuusuf Ciise kaba ku tukaday wax xiriir toos ah isaga ma ka helay family ama qoyska annaga toosna lama soo xiriirin ninku wuxuu leeyahay wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool walaalahaas qaar ka mid ah bay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii uu horeeyay xarakada uga samaysay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeyay maana maqal taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xadaran gashay oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaas oo laga qaadanayo inaad wiilka qofkii loo qasaaso ama sida aad qabtaan sharciga reerka gacanta loo geliyo Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanayo Burhaan Ibrahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibrahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxaa dilay nin hoggaan sare ah oo al-shabaab hoggaankooda sare u hayo oo kamid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan see u dhacday arrintu waxa ay tahay sida aan maqlay Tawfiiq xaafad Tawfiiq Yakhshi ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd oo soo socday xaafadiisa soo socday in kaba ku tukada wiilkiisa ayaa dhax ugu soo baxay oo markaasi uu isku sheegay ninkan in la dhaho Daawud baa loo yaqaan Daawud baa la dhaho ragga kamid ah laakiin ninkan markuu hubsaday inuu Daawud la dhaho xabad sidaas ugu dhufteen waxa ninkaas ugu maqaal ah in uu ka soo horjeestay sidii al-shabaab wax wado sidaasna uu dhintay wax al-shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa talaabo laga qaaday wax talaabo ah lagama qaadin lama qisaasin diyana lagama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in al-shabaab raali ku ahayd dilka ninkaas inay ayadan dhinac ka maleegeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesha oo la kaaga shakiyeen meel ay ka talinayeen oo wada joogeen ciidan dawladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn qof iska socda xabad la iskaaga dhiftana shaki maaha waa la qaban kara qofkii waa la weydii kara markuu wareysta ka baxayuu dilay
waagar aabihii waa nin sare waa Yuusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrintan muxuu ka qabtay wax uu ka qabto male asaga waa loogu sareeyaa oo wax kama qaban karo oo meesha hogaanka sare waxa haysto maxay ahayd Abu Zubayr haystay Axmed Ino Gadane ninkaana waxa lagu yaqaanay ragga oo asaga ugu talagalay in la dilo waxba laga qabto marka arrin al-shabaab ku taaleeyd kaba ku tukay kaliya uma ooli al-shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin al-shabaabna ma bixin diyadii dhiigiisana waxa ka dhigay wax ka qaatay haddaba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka al-shabaab ha ka tagaan waqooyiga Ameerika ama dalalka Yurube sidee ayay tallaabadii ay qaadeen ay u saameysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba Cabdiraxmaan Mukhtaar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota isla markaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u safartay Soomaaliya horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor waxay ahayd aad u saameysay bulshada Soomaaliyeed waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho bulshada Soomaaliyeed cabsi badan way soo gashay waalidiintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay ka soo carareen dagaaladii qaxi ee la soo mareen nolol wanaagsan iyagoo la raadinaya ay la yimaadeen dal shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan qaarkoodna dee sidaad ogtahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogtahay waxay ku sugan yihiin marka waxyaabaha waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabo oo ilaa hadda xitaa saameynteeda bulshada ay kasoo kaban laada waa gartay maxaa kamid ah waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada waxyaabaha sida gaarka u saameeyay maadaama dad muslima nahay Soomaalina aan nahay dhalinyarada baxayna ay Soomaali yihiin fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii airportadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaar ah loogu fiirsado hadda ma waxa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yiraahdaa uu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay wallahi xaqiiqda markaan ku sheego haddaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aan nahay waalidiinta Soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waaliga aan nahay saan ku sheegay mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raadsanaya ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gaangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwan midiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed oo qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoyskii ma ahayd diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelaha ku cibaadeysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu Maxamed ama Cabdullaahi ama Cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaar ah qofku markuu safray xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraadeed marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada marin habaabinay noocay doonta ha ahaato barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo